أنا شاه مرحبا وحان ربو أو إلهي والله بالله تالله بين شيء شفيل بقولك عشان أنا أقول واحد مرة بقى تعرف هاي توابيه أنا شاه مرة ولا محاكو ديدا شاه محاكو ديدا محاكو ديدا شاه waxaan ku diiday dhibaatada kismaayo ka socota maanta warshahagana absalool aan kugu soo daro oo kan maxaa sabab maxaa keenay waxa keenay kaya wuxuu doo gurtay aan saaba jiray yaa diray kaya wuxuu doo gurtay warkiina waa mid loo haysan magaciisa oo intay horta Kenya waxa weeye waa dalkii soo dhaweeyay oo koobaad oo dadka Soomaali markay burburto dawladeena ay dhacday oo wareer ku yimid wadanka lagu soo qaxay weey lama xaqiro dadka qofka bil aadanka lama xaqiro laakiin gadaal bay ka xumaat gadaal bay ka xumaat markay anu waxaan ka xumaat markay ciidamankeenii ay jiraan oo leeyahay Soomaaliya wax u qabanaya masana ay leeyahay hadii ay ku run yahay ay leeyahay maanta masana ay leeyahay badban ku haysta Soomaaliya oo Soomaaliya maanta xaaladeeda ay og tahay dhibaatada ugu dhacday burburka ugu dhacay 30 sano burbursanay marka waxa weeye waraab noqota Kenya marka waraab walaalnimo waa ka tagay waraabu wuxuu ka xoolaha ka bilaabo mataqaan gol jilicdu ka bilaaba meesha gosha oo jilicsan ayuu ka helaysaa waa neefkan cadowga ah walaga iibiyo Soomaaliya ka iibsay Soomaaliya ha ugafi Soomaaliya ha ugafi hebba ka iibiyo adigu haddaad og tahay laga iibiyo aad maqashay dad qaasha oo Soomaali boqol goynaya oo dadkeeda iyo dalkeedaba rabay dhiigayaga iyo ciideedaba inay iibsadaan way wax ma aha Soomaali haw nisbay waan Kismaayo joogaa kamid qayb kamid Kismaayo horta waxa jooga waa dad Soomaali waana magaaladeena laakiin fartun bay ku godantahay waxay ku godantahay Axmed Madoobe iyo inta ag fadhiyay fartu ku godantahay oo waliba leeyahay dhihi jiray hadda suldaan baa la diray suldaan kale la diray nin kale oo oday qameed la diray nin kale wax galo Soomaali in alla intii Soomaali wax u gashay meesha lagu saasay jeerayso ma garad aniga wax weeye waliga siyaasad ma geli laakiin xumada iyo wax muuqanaya maanta wariyaa inta madaxweyne Shariif hebel guuleed ee Shariif Sakiin dani ninkii faroole wax meesha ninkii la lahaa hebelka Shakuur Xashiq Maxamuud waa ninkii dhamaan oo Soomaali Xashiq Maxamuud waa ninkii aan Soomaali aan lahaa wax galkeeda weey maxaa keenay maanta hadduu sa imaan hayo cod la yaqaan iyo wax la yaqaan intuu ku hadlo nuujirada saasan Kismaayo ku tagaya Kismaayo horta dhaliil baa ka jirta laakiin ummadda Soomaaliyeed hamoodin aanu shaqo fardaloos iyo nuguri macnahaas ku tagaya inuu noo qeexan macnaha uu ku tagay nimankan kala soo maaha oo la leeyahay Shariif Sakiin oo la leeyahay Ilaahay ku dani oo la leeyahay faroole oo leeyahay hebel Shakuur horta hebel Shakuur waa ninka kala qaribaha Soomaali oo rabayba wuxuu maqlay habargiir baa xoog leh war habargiir maxay xoog u leedahay habargiir dameeram ya maalin walba waxay ku baabaaysaa waxaan jirin habargiir xoog baa habargiir baa ka waraa wax waa laga tagay qabiil waa laga tagay wallahi oo bilaa qabiil inana hadana qabiil dhulka Allah la goodo qabiil marxu qabiil Allah ma sha Allah abu wax yar aan kuma xanaashin aw yar ma waraa wax yeelayso waraa jabri sonkorta ay ku kicin hay u kicin sonkorta dibirta istage maxaa isku dishay warsi biyaha watarka waraa ay soo bax oo maay warkaan ma dhamaan haye koowde wax leeyahay haddaan ka aamuso afka baa leega goy kuwaas hadda shacabka Soomaaliya maxaa dhahnaa shacabka Soomaaliya waxaan leeyahay nimanka maantay miisaska inta is hor dhigay على مسار وريال على مسار هيا والمدحويني سومالي iyo ra'iisul wasaarihi waxay joogaan xamar waa soo faaruqay maanta xamar waxa loo soo faaruqay oo meeshan Kismaayo horta Kismaayo waa magaaladii waa dadkayga waa dalkayga laakiin ninkii la yiraahdo maanta la caleem saar Sheekh Axmed Madoobe iyo dawladda Soomaaliya oo soo horjeeda anagu wax dawladda Soomaaliya ka soo horjeeda sideeba systemka dawladda Soomaaliyeed wax ka soo horjeeda anu ma rabo ma arki karaba hadii system kama socdo Kismaayo waa ognahay madaxda soo martay tagtay oo systemka garanaysa xaajiro waxa khaldan yahay ka khaldan madaxda waatee
madaxda hore dalka soo xukumi jirtay ma tagtay meesha macnaha ku tagan ifaansi waaye madax Soomaaliyeed waa ahaayeen macnaha ii sheeg جماعة هان دولة إن حلقة كده تو يجوا هالك حلقة أنا عروق صلاة خاصة oo ayagu meesha ay xilka helaan hadda soo wixii la qaribay maaha nin walba hadduu xil raadso nin walba hadduu hunguri raadiyo soo dhibaatada ku dhacday maaha أنت محل حسب شعب سبحان الله shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta waxba ka daran waxa leeyahay waxba ka daran baa leeyahay maantay waa ka tagtay xil iyo waxaan rabaa magaciisi iyo waxaan ahay ree hebel iyo waxaan ahay xagga iyo waa ka tagtay badayadii baaba nool ku haystaaba كي واحد يستوي صومالي بربطها ما أنت كفائدوش. هذا شدال ولا صوص عارفه. كسدال. يلا صوص عارف شدال. يوم تلي جابيه. شدال كي يلا صوص عارف ما هلا أركا. هلا أركا مياه. يلا صوص عارف دولته معك لا. حلقة مناسبة قطع. دولته شيء اسمه عاسق. أنا ورد وركا وحنا فهموا يعني. nin maanta dawladda jirta iyo Soomaali waxa noo ifay layr baa noo shidmay yar baa noo shidmay layrka yarka oo noo ifay yaa rabaa inay jabshaan waa wax maanta kismaayo loo banya Soomaali waxaan u sheegayaa nimanka maanta kismaayo jooga warkooda iyo muuqaalkooda iyo hadalkooda iyo caleemashaarkooda iyo waxooda marabno Sheekh Axmed Madoobe hadduu wax tarayo waxaan leeyahay waa nin Soomaaliyeed horta waxaan leeyahay hadduu wax tarayo 10 sano haysta xilka 10 sano hadduu xilka hayay oo masana dawladdii asaga isfahmi waayeen oo masana shacabkii Soomaaliya isfahmi waayeen muu iskaga tago yaa waxaa la ciyaar maxaa loo hamiinka loo tabaadaa wax ku jiri maxaa ku dhajiyay Axmed Madoobe meesha wax ku dhajiyay maxay wuxuu kii ugu sii carraayo xamarna u tagi waayay kii hadda Nairobi ugu carraayo war Axmed Madoobe garow ma tago Hargeysa ma tago xamar ma tago balweyne ma tago Kenya u tagaa mar walba Kenya waa nimanka maanta dhulka iyagu noo haysta wax aan yeelayno iyo ma maqli karo محمد شعب قطر أبوه يا شعب الصومالي محمد قطر shacabka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa arrinta maanta Kismaayo laga wada wax jira ma wax jira ma ahan Kenya annaka wax mar noo haysta marka Kenya mar bay walaal noo ahay mar bay magaciisi noo ahay laakiin maanta waxba noo haysto ninkii badda waxa leeyahay hore loo ma Soomaali hore uma maadali nin waxa leeyahay islaantaada raba gabadhaada kama yeelo anaka dhulkayga waa nagu haystaa lafahayga iyo dad horta Soomaali wixii wax gal hore u baabeen hadda waxa weeye ciidii baa nagu haystaaba kuwa maanta meesha Kenya waxaan qabaa anigu waxa la isku dhoobay meeshaas waxba lacag baa taala meeshaas farmaajo iyo Axmed Madoobe lama kala jecla lacag baa taala dowladda kuma soo saar halka badda arinta badda maxkamadda ee Kenya guulayso ها lacag baa taala markaan leeyahay lacag baa taala Soomaaligu kala gadayo aqliga ila ay faaso lacag baa taala meesha koowdi lacagtaas laakiin waa mid la eedi doono shacabka maxaa la gudboon ka daawanaya shacabka waxa la gudboon inay nimankaas warkooda iyo magaciisooda ay ka tashadaan banaanbax dowladda ugu taageeray meel kasta ay ka rideen ugu kala taageerayaan horta banaanbaxu waa fiican yahay ma banaanbaxu waa fiican yahay wax jira weeye banaanbaxu horta wax jira weeye dadka shucuurta dadweynaha waxay qabaan ayay horta banaanbax ku muujiyaan laakiin xagga amniga ayaa maantay anigu hadda ugu baaqi karaa ummadda Soomaaliyeed hala banaanbax waa dhigi karaa laakiin xoogaa maantay amnigii iyo maartay magaciiski waxa system baa qaldan taas baa maanta aan loo banaanbixi karin nin walba ummadda Soomaaliyeed wax garanayo oo maanta aqli intaas uu ka go'an yahay dhunta ما شاء الله هاي maxaa ku darsanaysaa marka adoo abaan Soomaaliyeed oo wadanka wax badan soo joogay oo xaaladda amniga oo dawladda soo arkay oo adduunka wax ka socday tartanka meelaha la marayo arkay oo dariskeena arkay oo siyaasiyiinta iyo dadka inoo jooga arkay oo maamulada federaalka iyo arkay hay maxaa ku talanaysaa maanta oo habboon dawladnimo ku fiican dawladnimo waxa ku fiican maalin walba
maalin walba horta fiiri waxaan arki jiray neefa geela markii la layhayo waa la xiriiraa waa la qabtaa riyadaa la baraa xaggaa la saaraa xaggaa la saaraa waxa weeye waxaa la yidhahdaa markaas kabacdi waa inuu markaas kabacda caruurta iyo ilmaha iyo maaragtay marasta markaas kabacdi baa la saaraa maalin walba mid hala doorto cusub maalin walba mid hala doorto cusub wax suuragal ma ahan nimanka ha loo daayo xilka haysta maanta ha loo daayo xilka soomaali waxaan leeyahay xilka hawdaysa nimankan gabgableyo oo ku hayay dabajadi iyo xagajadi baana war waxaas wax kama jiraan waxba nooma galan waxaas waxaa loogu daynhayaa allahu naxariista ilaa cabdullaahi sheekh yuusuf iyo ninka la yidhaahdo kaba sii horba cali madaxweyne kasoo bilow cali maali kasoo bilow waa lasoo doortay waxaa lasoo doortay cabdiqaasi waxaa lasoo doortay cabdullaahi yuusuf ma garata waxaa lasoo doortay shariif waxaa soo doortay xasan sheekh maxamuud ya intaasoo madaxweyneha kansaar maanta kanaa dhaame soo maaha maalin walba waxaan ku jiraynaa cusayb iyo waxaan ku jiraynaa magaciisi jadiid wareerkaba markii la rarayo waxaa layihaha berin rabadin oo qabow la degi jiray ha loo raadsa meel cidlaa laguma ooda carragoysa maalin walba carragoys iyo dhibaato kama bixi karne soomaali waxaan leeyahay madaxweyne waa haysanahay bal ayaga maanta ha lagu hubiyo bal aqli xumadiina midka aad maanta joogta 10 sano haysto maantana waxaad rabtaan 4 sano oo kale inuu sii haysto war aqliga maad leedihiin adinku filansa maad tihiin yaa ciyaar waxaa la yidhi hamiinkii maxaa loo timaadaa wax ku jira war aqliga maad leedihiin yaa maalin walbaba inaad ninkii dhammaa oo madaxweyne soomaaliya saxda ahaa aad maalin walba jaraajada ka rida axmedoobe aad yidhahdaan ha iska haysto waxbaa ku jira meesha kenyaana wadata adinkuna waxaad meesha u dhoobantihiin maanta waxbaa yaalla haad meel ku dhacay haddaad aragtid baa raq baa taalla haad meel ku dagay haddaad aragtid meeshas waxbaa yaalla shacabkuna waa daawanaya aqligooda waa loo jeedaa dad badan oo maanta anigu meeshaas joogana waxaan qabaa anigu waa hebel sharaftaa ka dhacday waa ka dhacday sharaftaa ka dhacday munaasibkay ka dhaceen wallaahi sharaftaa ka dhacday dad badanoo maanta meesha sharaftaa ka dhacday haa aniga waxba yaan ku xiiqin warka xanaaqa iyo barbaleenka ila tegi ummadda soomaalida waa ka dhigay ya maya waxa weeye waa marka waxaan joognaaba ya waxaan joognaa xididaha rabaaba in naloo siiba waana la rujinhayaa marka anu waxaan ka yaabana soomaalida waa meeshaan degi jirta in la dhihi doonaa waaba la gata dalkan dadka war suuragal ma tahay war maanta dadkii dhuuxa soomaaliya waxbay tarahayaan yaaba maanta waxaan ku dhaqmahaye oo sharafti ka dhacdo oo cumaamadii ka dhacdo oo halaabay anigu waa hebel malihi qof aan hebel leeyahay ma jirto laakiin macnaha iyagaa laga rabaa kismaayo ay ku yimaadeen kismaayo macnaha ay ku yimaadeen iyagaa sheegi doona waxaa la yidhaha buunkayga ninka xadow xaggee lagugu yeeri doona buunkayga caroog iyo hebel waa la cadaadiyey waagii horeto oo libaaxa iyo waraabayaasha laga baqay jir bahaliye oo la guurahayo waagii hore dhulku hawd ba ahaan jiray moogda kayma ah markii la guurayo wuu alisiin jiri marka bahal aad u qaymo lahu ahaa oo laga soo raacayo 20 kilomitr dhawaaqiisa waa la xaray xaggee lagu yeerin doona buunki hebelaha xaggee lagu yeerin doona hadda iimaan ayaa sheegi doona waa ka baxay warka anu waa ka baxay